baarida haween geed baa loo fadhiisan jiray geed baa loo fadhiisan jiray inta loo gogol dhigtaa gabbaatii la qaadan jiray guurkii sida geed ma dharay gayaankii miyuu qablamaa gabdhii waxay leeyihiin raggii gododlay noqdee alla raggii gododlay noqdee iyagaa goobta xunna dhigay iyagaa goobta xunna dhigay galabtii walba waa aroos galbisna uma baahanee gabley shimbir bay tuntaa guurkii sida geed ma dharay gayaankii miyuu qablamay عادل كوسهل
diyaayo hormaynay timid diyaayo way hor leedahay diyaayo hawsha korodhiyo diyaayo habaskuba wari diyaayo habaskuba wari diyaayo maadigaa yidhi diyaayo shifa ku absaar diyaayo shifa ku absaar diyaayo waa sharkuuma leh diyaayo waa sharkuuma leh diyaayo maadigaa yidhi diyaayo goran dheerey diyaayo goran dheerey diyaayo goortu waa galab diyaayo geelun carrow diyaayo geelun carrow diyaayo maadigaa yidhi diyaayo dhurdihii shalay layaa dhurdihii shalay layaa dhurdihii shalay layaa dhagta kaa galay layaa ka dhukaya oo layaa ka dhabaandhaw layay ka dhabaandhaw layay ka dhabaandhaw layay ka dhabaandhaw diyaarayo maadigaa yidhi diyaarayo maadigaa yidhi diyaarayo afar doobo diyaarayo afar doobo diyaarayo dilin weynba diyaarayo dilin weynba diyaarayo laysu daba dhigay diyaarayo ay dardhaban tahay diyaarayo oy darbaran tahay dayaayo darmaran tahay dayaayo darmaran tahay dayaayo darmaran tahay diyaarayo maadigaa yidhi diyaarayo farudhabadka diyaarayo farudhabadka diyaarayo wiilka fududiyo diyaarayo fula kacabsada diyaarayo fula kacabsada ley fula kacabsada ley fula kacabsada ley fula kacabsada ley fula kacabsada diyaarayo maadigaa yidhi diyaarayo maadigaa yidhi diyaarayo saanu fooreray diyaarayo maadigaa yidhi diyaarayo maadigaa yidhi diyaarayo cagta saare diyaarayo caalimiintiyo diyaarayo caadilkow sahal diyaarayo caadilkow sahal diyaarayo hormaynay timid diyaarayo نخرب ولا جو هرتا نبضان ولا جو خد مايو نسدي ولا جو سعدا لونكي كله وحن لها نحن سدا آذنه نقبرنا فيه نسقان نرورا كوا في الليل أماننا ليو تناد نعكستوي نولو شوتهاي نولو هو نحش وجوج نغانتي وار لهن دادو نحر وانا ليو نصيحة ذن إيجا قدون إبراهيم ولا لها صوت كالي إيماد أب مفيعنتين هيا حقو سيجيس أب مبردين معكو بردين waxaan inigu yeeray astaxaan hoo ushan adna hoo ushan adna hoo ushan adna hoo ushan kala jebiya aabba kala jebinteeda may fududeed haye tii hore way fududeed tan yaa kala jebin karaa hoo كان هذه حق ما قبت أكل جبن ويس ها
وكل جويس أو هاي وكرويس حيو كرويس إني حوق ليهين هل دان نقطين وكل جبيسين لأن حال الرباء إن أصلا سكود دمنتين متكو أدهتين حوله أدقتين سنة الرباء أنا سكود دمنتين أنا هدان انتو قال إني قال أنا اللي حوقين أنا اللي قادرين تبتن أسكود دمنتين متكو أدهتين سنة الرباء سنة يلا الرباء مركز سنة سكود دمنا يا nuxnuuxsade aadanuhu nag eberna fiyo nusqaan naruuraan kuwa fillayn amana naaliyo tanaad nooc kastoy noloshu tahay nooluhu waa naxash u joog nagaantiyo waar lehene dadow nuxur waana liyo naseexada or Kemet had to be African. Number one, the Kemites themselves wrote it in the Papyrus of Hunefa. Let me stop here, by the way, too, because we talked about Somalia this morning. I want you to understand Somalia is ancient Puanit. It is that the land where the Kemites said that they went back to visit the gods. Right now, where we are blowing up, was where Kemites sailed up happy. Puanit is the land where Hatshepsut sent an entire fleet of people to meet with her cousin, who was the ruler of Punt. Somalia today was Punt yesterday, the land of the gods. So when we're talking about what Somalia is, if I could have caught them brothers before they got on that ship and told them, instead of shooting their brothers, they would have kissed the ground. They went back to our holy land, what Dr. Richie King calls Kui land, the land of everything and all. Consciousness came about in this area. Because please, we have to know that Africa as we know it today exists today only through 1885 and what was known as the Berlin Conference. Prior to that, Africa wasn't the nations that we see today. Somalia was related to, Punt was related to Kush, as you can see with Hatshepsut, and the queen of Punt at the time. They were related, they were cousins. That whole area was related. And we have to see this. There was a relationship between the Monomotapa Empire of South Africa and other parts of Africa. So we have got to look at this as an all-inclusive, an all-encompassing, holistic experience. But let's go back now, because I just want to say that about Somalia. Because I want you to understand what they're doing in Mogadishu. That's the Holy Land. Okay, number one, in the Papyrus of Hunefa, the ancient Kemites themselves claim to have come from the foothills, have originated at the foothills of the Mountain of the Moon. In the central part of Africa, around Kenya, Uganda, and Tanzania, there are two mountain ranges. One Abdulqadir Muhammad Muumin, waxaan joogaa idin kala hadlayaa waa degmada Murcayo, gaar ahaan dhanka buuraha Maydiga iyo Fooxa iyo Beeyada iyo waxaas ay ku yaalaan. Waxa weeye geedkan aan hadda gacanta ku hayo waxa la yiraahdaa Maydi baa la yiraahdaa, waa laan aan ka soo jirnay geedka dusha halka ku yaala. waana kuwaas oo buurto dusheeda dhan buu yaalaa. geedkan sidiisaba xididkiisu waa sida cagta geela oo kale bay buurta saa ugu dhagan tahay. biyaha xididka kama cabo, wuxuu ka cabaa kor. roobka iyo sayaxa iyo waxaas waxay u yihiin biyo ka bacdina caleemahaas iyo maartay buu ka cabaa biyaha. xididka hoose ma leh. marka soo fujiso waa sidii kibis burdambaska oo kaleeto ama cagta geel oo kaleeto uu hoos ka yahay. wuxuuna ku dhagan yahay dhadhaabta, waana kaas geedka halkaas ku yaala. inkastoo ay ka fiicnaan lahayd inaan dhadhaabta naftirkeeda aan ku waxayno, waana kuwaas geedka dushiisa oo ku yaal. geedka waa geedka kaliya ee maanta Soomaaliya kaga yaala dhinaca bari iyo Sanaag. Maydi baa la yiraahdaa, meel kale kuma yaalo. meelaha kale oo dhan waxa ka baxa beeyo, laakiin geedkan khaasiyan wuxuu u yahay oo si khaas ah uga baxa dhulkan sida Murcayo oo kaleeto, Dhurbo, Galgala, Hooda, Moodiye, Dibir, dhulkaas oo dhan buu ka baxa.
waa geedka keliya ee maanta dadku ay maaragtay resource u ah oo dhaqaalahooda ugu badan uu ku tiirsan yahay waxa kale oo dhaqaalahooda ku tiirsan yahay xagga badda oo maaragtay kalluunkii iyo wixii maaragtay lagala soo baxo iyo xagga xoolaha ariga geela bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin sanadka geedkan wuxuu noqday barwaaqo hadda markaan saa uga soo gooyay caanihiisa baa iga soo dareeray waxa loo qaataa geedkan ningaaf baa la yiraahdo oo saas loo qabsado geedku markuu weyn yahay oo saan kale yahay halkaas nabar lagaga dhuftaa halkaana nabar waa la nabreeyaa nabarkaas waxa lagu soo noqdaa 15 casho ka bacdi qolof madow oo sidii nabar afuulaysa waa laga fujiyaa markaas caano soo sii deynaya caano laba qayb bay noqdaan qaybna hoos bay u dareertaa qaybna waxa weeye meesha ku hadha qaybta meesha ku hadha waxa la yiraahdaa fiirto oo ningaafka saas loogu gooyaa oo koliga lagu ritaa qaybta dareertana waxa way qaybta xabagta noqonaysa oo hadhow maaragtay markii 7 bilood 8 bilood oo gaaro dareerkaas ama caanahaas dareeray oo isfuulay waa la fujiyaa marna geedka saas uga soo dareeraa oo halkaas ilaa dhulku qabsadaa marna geedku ku dareeraa ilaa dhagaxii uu qabsadaa marna ma wasqoobo buurta dusheeda ama dhagaxa dushiisa buu ku yaalaa ciid kama baxo mana ka bixi karo mana la abuuri karo geedkan hadda hadaan gooyo oo aan iraahdo abuur u samee ma abuur ma noqdo mana baxo laakiin beeyada waa la soo goyn karaa gurigaaga ka beeran karaa bismillaahir rahmaanir rahiim meel kale u geyn karaa ka beeri karaa laakiin geedkan ma leh mideeda kale geedkan waxyaabaha aan ku aragnay oo mucjisooyinka waxa ka mid ah qofka markii uu guraayo ama geedka uu qabsado haduu sii daayo dhiigiisa dhan wax ku dhacaya roor macnaha dhiigi gacanta waa rooreysa waxa moodaa inuu dhiigi jiqaayo macnaha mideeda kale waxa weeye waa geed aad u caraf badan udgoon leh marka waxaan dareemeynaa anaga wax laga sameeyo ma naqaan laakiin sida la ku yiri barafuunada iyo cadarada iyo waxyaabo kale laga sameeyaa waana u egyahay sababtoo ah meeshan ku jiro dhan waa waxa ka soo uraya fooxi iyo carafkiisi iyo udgoonkiisi baa ka soo baxay dadka maantay 80% waxa ka shaqeystaan baalkaas oo ku ladan yihiin halka waxaan kaga baxayaa 10ka maydiga insha Allah waxaan gali doonaa mar dhow saacadaha soo socda beeyada iyadana waxa weey dhulkan waa aragtaan buuraha iyo quruxda iyo sidoo u egyahay ma sha Allah degmada Murcaan la yiraahdaa waxaan idinku soo dhaweynayaa dhammaan dadka oo Faransiiska ah oo maydiyada iyo waxaas iyo baalkii inay lambar 1 u tahay gobolka bari gaar ahaan Gardafuul meesha ugu badan maydiga iyo beeyada waxa weey dadkii gurayaan inuu tusayna waxaan inuu tusayna wixii laga soo guray insha Allah marka dawladda Puntland iyo dhammaan caalamka maalgashiyaasha kulli waxaan ku soo dhaweynaynaa geedkan faa'iidadiisa iyo maaragtay nimcadiisa in laga faa'iideysto oo la yimaado degmada lana arko maaragtay beecna loo helo sababtoo ayaamahan in dhaweyd ba hadda wuxuu noqday baalkii qiimihiisii uu jabay awal waxa la geyn jiray imaaraadka jidda ama Saudi Arabia hadda maaragtay suuq yari baa ku timi sida darteed dawladda Puntland waxaan rabnaa in ay maalgelin u raadiso si loo gato China iyo meelahaas la geeyaa waa geed faa'iido badan inagana faa'iido inoo leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa ku mahadsantiin muuqaalkayga iyo dhageysigayga dhammaan inta i daawanaysa